meelo badan baa laga war hadlay mar qura Soomaaliland kamay noqon mowqifkeedan waxba kamay bedelin inay madax banaaneeda ku taagantay Quraan ama dalka carabta ha noqoto oo kuwi khaliijka la isugu wada yimid ama ha noqoto Turkiga ha noqoto inta laga war hadlay taas maanta markii halka la isugu yimid dawladda Ingiriiska oo cilaaqaad dheer leedahay macaawin badan ku qabno inuu badan naga dhaxayso iyo waxtar badan waxa jirtay istaan in sidaas ka duwan ay noqoto halka waxa uu qabatay shir bay u qabatay Soomaaliya oo gudoominayo madaxweynaha Soomaaliya oo wax ka gudoominayo waxaanu shirkaas annaga nama qoseeyo حاسين منه ودي منه وحي الله ترى كريه وحي الله قبل كره وحي الله قبته وحي الله حركة قبلنا مجرته لكن أنه صوماليا كمان بدهم ما دام أنا كم بدهاي في صوماليا أي قدومني سنة أنه إمام منه intaan Itoobiya joogna aanu koranay madaxda dawladda Ingiriiska qayb kamid ah aanu koranay wasaarad kamid ah waanu cadeynay mowqifkayaga iminka markaan u nimidna waxaanu saragnay Prime Minister David Cameron iyo Foreign Minister William Hague waa la koranay iyagana mowqifkaas aanu aad iyo aad ugu cadeynay una sheegnay waanu ku taagnay mowqifka anagu wali waanu ku taagnay iyaguna waxaanu jecelahay inay nagu support gareeyaan meelaha aan ku kulmanay sida Turkiga hore oo soo sheegay oo kale meelaha kale waan ku kulmanay laakiin si siman oo aanan kala lahayn aan u simanahay ayaan ula kulmay marka waxaad ku kalsoonaataan meel kasta aan tagno meel kasta aan joogno shirarkaasi waxay doonayaan ku dambeeyeen waxaanu mar walba u taaganahay oo ay dawladda iyo shacbigeedu daafacayaan madax banaanida iyo go'aansitaanka Soomaaliland ummadda nagu aamintay ayaanu anaguna fulinayna ku socodsiinayna waxaanu jecelahay saaxiibadeen inaan isku dhicin waxaanu jecelahay saaxiibadeen inaan isfahanno laakiin danta qaranku meesha ku jirto ugama baydhano ay tahay arrimaha la xiriira qadiyadda Soomaaliland iyo wufuudeeda tagaysa dibadaha ugu tagaya ee la soo macaamiloonaya kama dhigno xukuumadda oo kaliya kama dhigno waxa isu raaca axsaabta qaranka oo dhan madaxda baarlamaanka madaxda xisbiyada iyo golayaasha qaranku waan u wadanahay si aan u muujino midnimada iyo wadajirka qaranimada Soomaaliland iyo arintaas inaan loo koobaysanahay marka taageerada oo aysan dalka iyo dadkaba aad iyo aad baan ku mahadnaa. Assalaamu calaykum.